barrow yiraahdo oo dhowr mar hadda ku hor duqeymo isdaba jooga ka dhaceen xali 8 saac habeenimo ayaa duqeynta ku bilaabata saaka 12 saac salaada subax ayaa diyaaradihii halkaas ka horeeyeen duqeynta ka filaan marka muxuu ahaa bartilmaameedka inay duqeyntaasi la goobayeen meel gaar oo ay duqeeyeen miyaas jirta dabcan wax badan xariiso aan la sameeynay adkii isgaarsiinta horta waa maqan yahay waxaana ku naqaanaa sida caadi ahaan ba iyagu dabeecadooda taaneenka nabadiidka oo quusta jooga inay gooyaan mar haddii khasaaro badan la gaarsiiyo inay gooyaan isgaarsiinta waa wax lagu yaqaan isgaarsiintana waa go'an tahay laakiin sidii marka nala xaqiijiyay inta isgaarsiinta dhabahan u shaqeeyay aan helno wararka xarooyin oo markii hore inta ka carareen dib ugu soo laabteen ayaa lala bartilmaameedsaday marka ma la og yahay wax dhimasho ama dhaawac oo ka dhashay ama dad rayida ama ha noqoto maleeshiyada al-shabaab dhabahaantii lama ogaan karo xilligan hadda jira waxa lagu xariira aalada isgaarsiinta waaye isgaarsiintii mar haddii ay maqan taho xaqiiq ahaan wixii meesha ka dhaca sida dhabahaan in loo ogaado waa way adag tahay laakiin waa baaras dheer kadib dibaan ka sheegi doonaa haddii ilaahay laga helo marka ciidanka duqeeyay yay ahaayeen sidii markaasba annagaba aan ka warhayna amba caalamkuba og yahay howlgallo wada jira oo ciidamada Mareykanka ciidamada xoogga dalka oo qaybta commandosta inay fuliyaan howlgalladaas ayaan ku naqaan marka wax rayida oo aad maqasheen in qasaare ka soo gaaray ma jirtaa maya walaal ilaa iyo haddeertaan wax qasaaro oo dad shacab ka soo gaara ma ana maqal kaasi waxa uu ahaa gudoomiyaha degmada Baraawe Aadan Cumar Madoobe wuxuuna la hadlayay wariyahayga Falastiin Axmed